السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي نوغو قاليقا ميل والبادوني ديك جوكتان سلام كاليلا بايان هاودين سو مرينايا أنيقو منحة بيتي جاني كايقا دابنيسين ومنحة بيتي channel ما شاء الله أصحابي دادكو نوغو عسو بحان لينا سو دوادا دادكو ران لجوغين بحان لينا هاي نلسي جوغو وين جعلنا هاي أصحابي ما توحان وضا قبر آدي آدا أوجعل هاي هاد لمانا آدا أوجعل ما شاء الله أيضو سينجل أيان داون جيري ما شاء الله فرتون هابي ما شاء الله بايدي هذه صاحب كاغا انت ايان انك سلاميا اقون ساس امليه اقون ايما لها لكن channel كده اد ايان ugu xirnay oo qofaan jeclaa mar walba iska daawdo way just waxa waaye waxay leedahay soo jiidis ma sha Allah marka aan si daabanay maanta hadda halkan daqiiqado ka hor ayaa waxaan arkay video ay soo dhigtay Fortune Happy waa leedahay before 2 days wax ma fiirsanin aan channel-keeda ay soo dhigtay marka waxaan ku arkay waxay leedahay aqabe cirbada ay ka sheekeynayso cirbadaas ay tahayna family planning-ka tii oo garabka la gashinaay ay ka hadlaysay saan filaayo haddii aan qaldanahay Fortune way qaban kartaa idinka dhan way qaban kartiin cirbadaas ayaan arkay dad badan inay ayadana kala tashatay walaalaheed ay ka celiyeen waalidkeedna ay ka celiyeen ma sha Allah horta way fiican tahay walaalahaada in aad la waalidkaaga in aad mar walba saaxiib ala noqotid ما شاء الله قبل سيدات بحي كوفي عنتها هويدات إني صاحب إلا تحي ما شاء الله هويلا أنت دي لا هي هويدين هنقع عذابين أدون كانوا حالينا هاي عافمات كسي آخرنا جنة فردوس إلها كورابي آمين آمين دنبي والدين المسلمين تدمان الله ودافو آدي أيام نجعلها أنيقا هويدي آدي أجعلها هويدي سا أجعلها هويدين كدن أجعلها ما شاء الله هوي معان هداد داوتين انتا كاسلامايا aadi aad hooyo markaa maqla aniga aada ugu jilacsanahay dhanka hooyada ooyna iska kay qabato qof hooyadiis wata xataa markaan arko ama qof hooyadiis sheegaya markaan arkaa taa aan aad ayaa u ooyaa hooyaday macaan way ii nooshahay 24/7 waa la hadlaa laakiin ma arki karo ma aqaani Allah hooyaday iyadoo adduun saan igu joogto ayaan u ciiloonayaa haddii aan iga dhiman lahayd anigu waxa u malin lahaa depression ala dhiman lahaa ilaa hooyaday iga qaadin عمر دير وعبادة لإيسي ما شاء الله مركز channel كان سي قلا وحن أركاي Fortune Happy أنكو كيني قبل ولاشن ها ما شاء الله Fortune Happy أو كهالليسو family planning تي أو قرب كالقشناي علادة بدن أي كشيكينيسو وارنتيت عقب بدن أي ليدا هاي family planning أيدا كليد معهن والله ما شاء الله أيدا ما شاء الله ويدعيسن تحيس haddiisan duceysaneen xilligaanay intaas may ku gaarteen waayo side effect-keeda badan dhibkeeda ay leedahay ma sha Allah qofka bil aadinka waxa ku fiican ba inuu asaga isgarto oo isfahmo ma fahantay waayo noloshiisi maxaa qaribahayo in aad ogaatid waay adiga haddii aad ogaan weysid cid kale ku ogaanaysa ma jirto hasi ahaatee Fortune Happy ما شاء الله آدي أي أوجد تحضرتها فرحة قفك بالآدك وحال ربا إنه أساس أوجد تحضره ما شاء الله أن فرحة آدي أي أوجع لها لبد قف وحي أدون كود جوان وفرحة هذه هدي إلى السم ويسعدكم إلى الناس مالهن ما شاء الله وإن أدك تحضرت واي قفك فرحة تقول شتي فرحة الأي مجوي كرا واسترسا أنا أهانتي ما أنت أوديكي هدو إيجا حناقصين هاي ama odigayga wax aan ku sameeyo uma adkeysan karo aad ayaan u jeclahay aad ayuu jecelahay waxay ku dhisan tahay guriga waa farxad la'aanteed cidaasayt waxba ma suurtagelayso intiina taqaanooyin qaanan intii kalena waxaan leenahay hadda ka dambe ayna baranayaan waayo familka sidiis wuxuu ku xiran yahay farxadda ma sha Allah ayda ka taxadirin farxadeeda cid ka taxdiraysa ma lahan ninkaasna waxa markuu ahayda faraxsan tahay aad guriga xataa waxa uu xiiseynaya nimanka dhan asaas adiga hada u faraxsan tahay guriga way xiisanaan adiga hadii aad ka xanaaqsan tahay guriga dhan way nacayaan marka farxatu waxay tahay cirbada aad qaadatay aad side effect u leedahay dad badan ayaa ilmo ku waayay ani ahaantayda gabar saaxiibadeeda aad u jeclahay ilaaha ilmahaasiyo ayaa 2015kii ay cunug ugu horeeyay miscarriage ayuu ka noqday markuu ka noqday waxa la waa laga soo xaaqay waxa la marka 6 bilood inaad joogtid waa ay ku dheen dhakhtarka dadkii waxa ku dheen ka waalan 6 bilood maxaa sanad xataa inaad joogtid waa hadii aad aragtid hadda lagu soo guursaday ciladahaas iska ilaa Soomaali waa aragnay waa istashkiilayna gabadhi waraa lagu gilin maxaa anoo iska dhaaf dhahayo abaay ma iska dhaaftid ay qaadatay markay qaadatay ilaa hadda
cirbadii way ku tagtay tii 3 sano ay qaadatay hal san ibar markay tahay iska bixiyay lahayd side effectgii wixii dhan way u adkaysatay iyo waa ku tagtay gabadhaas indii xataa waa la geeyay in laga soo dhaqo sanad ibar markay eed waa laga soo bixiyay in laga soo dhaqo ayaa la isku dayay way u suurtagal weysay in ilaa hadda wallahi meel ay atagin ma lahan hadda baadiyaha xataa way tagtay quraan ay soo saartay ilaa ilmaha u sahlo ilaa hadda ilma maysan helin fartuun waxaan kugula talin lahaa hadda way ku waaba iska gaartay nasiibaa leedahay cirbad kuguma talin lahayn maadaama cunugaadu operation yahay operationka shalayta adiga ma filinaynin ilaah ayaa kuu soo qoray anigaan hortaada fadhiyo cunugeyga ilmahay kala caadiya usoo dhalay cunugeyga hadda ahaa wuxuu iga noqday breach uu noqday breach markuu iga noqday breach waxaa laga wadaa ilmaha ma aragtay fadhiga dabaka keenka ah ayuu ahaa ilmaha dabaka keenka waaye kan waaye dhib waaye lagu dhahay naag u tag tiliig waa tagay naagaa u tagay waa liga daliigay markii liga dilaayo waa tagay dhakhtara u tagay dhakhtarku wuxuu dhahay waa in lasoo wareejiyo ilmaha ma soo gidin karaan waayo waxay dhahay waxaa joogtaa 8 biloodaa joogtaa 8 bilood markay tahay spaceka ma laha waa in lasoo wareejiyo waayo waa lasoo wareejinaa lagu dhahay cunugii baa lasoo wareejiyay haddana wuxuu iga noqday transfer ilaahay wuxuu u qoray inuu operation ku dhishto soomana cunugaas wuuna ku dhashtay waana ku dhalay marka walaalahay marka aniga shalay ismaan lahayn operation ku dhilaysaa waa ilmaha kala caadiya u dhalay operationka yaa qoray ilaaha ilmaha yaa bixiya ilaaha marka iimaanka hadda aad leedahay abaay mar walba ilaaha kugu hayo iimaanka aad ay u fiican yahay aniga shalay tii operation mid labaad aa ka cawanaysid oo uga carartay walac waay walac hadda la joogo horta walac baayooy fartuun walac daawooyin loo cunaa jirta dhaqaatiirta ayaa kusoo siiyaan hadda la joogo aan horta cunimahey kale waan soo walici jiray waan kusoo rafaad jiray alxamdulilah kan maan ku rafaadin maasha allah cunugeyga hore qaliin ayuu ahaa anoo qaliin ayaan qaatay ayaa hadda uur aan leeyahay maasha allah dhakhtar ayaan la xiriiraa waayo ilmihii kale caadi u dhashay kan qaliin uu ahaa transfer uu ahaa maano foosho waa lagaa qaboojina caadi ayaa lagaaga dhalinaa ayaa lagu dhahay saas ay tahay marka anigu waxaan usii rumaystay cunugeyga labaad micad waxaan ku dhalay cirbadaas camalan ku dhalay maasha allah cirbadaa lagu dhiftay micad anoo foosheyda cirka aan ku taaganay 12 liikeen 9 saac habeenimo ay soo qabatay foosh 12 markay ahayd ayaa la keenay staalka 9 saac ayna dhalaysaa lagu dhahay ka soko maya ma soo dhawaa lagu dhahay laakiin waxaan sameynaynaa cirbadan ku dhifanayna xanuunka zaid waa gabadha ma adkaysan kartid cirbadaa lagu dhiftay waa la siixi computer lagu xiray 9 saac markay ahayd waxaan ku soo kacay computerka qayladiisa markaa soo booday maasha allah cunugu waa imaadayba waxaa la dhahay neeftaada hoos u celi isdeji ilmaha waa kana ilmihii bush hal mar la leeyahay waa ixla iska soo dhahay xanuun imahaaya ixdaan dhahay cunugi bololoq waa imaaday marka dana sidii camal ayaa lagaaga dhalinaa ayaa lagu dhahay maasha allah cirbadaas aad ay u fiican tahay marka haddii aad qaliin ku dhashay cunuga kalena waa kasaa marka waxaa waaye 2 option ay ku dhahayaan haddii aad qaliin rabto qaliin adaa dooranaysa haddii aad qaliin lahayn waxaa waaye gynecology-ka dhalma caadi ayaan rabaa dhalmada caadi haddaa rabtid waxaa waaye cirbaday ku siinayaan foosh ayay kaa qaboojinaya saas ayaa ku dhalaysaa ma fahantay marka waxaa waaye VBAC allah babic ma fahantay marka maasha allah taas ayaa ku dhalaysaa la dhahay fool horta walac wixii la dhahaa ilmihii kale horta waan kusoo walici jiray ilaah amarkiis walac wixii la dhahay horta yaa waa soo mari jiray rafaad haddii lasoo maraa ilmahaas waa kusoo rafaad jiray laakiin alxamdulilah kan walac maan arkin videoyashay dib ugu noqdo xataa sawirka waa in soo saaray labada xaba aan isticmaalo moonin maasha allah walaci markaan ka baxayna daawo fitamiine waxaa la siinaya calcium wixii dhan isku jiro ilaahay xaaladiis ogi oo weyn kii aana dhuuqaaya maasha allah energy aa jirto ilmihii dhan kale waa ka xoog badanay hadda qof ubig hadda maaragtay dhalwey camal ubig wada suu strong u tahay strong waa wallahi baan ku sheegay maasha allah marka nafsadan hadda nowadays waa la xakameyn karaa marka ugu walac hooyooyinkiina waa ku rafaad jireen uurka waa kusoo rafaaday anaga bilmaha ugu horeeya kusoo rafaadnay laakiin alxamdulilah hadda maasha allah hadda hool walba waa la fududeeyay waxaan u la xiriirtaa dhakhtar la xiriir gayna wiligaaga dhakhtarada caadi waxaan lama xiriirma gayna la xiriira maasha allah nistaalkan ku xirana waa Southsea dhakhtaradan ku xirana waa Bleda la dhahaa Southsea cidi garanayso Nairobi South aan ku xiranahay dhakhtar Xasan istaalkiis waa maasha allah Bled aad iyo aad ay u fiicanta aad iyo aad ay kaaga caawisa
ayada nafteeda haddii ay cunugu hore kan maya ay ku dhehaysaa operation maya inta badan xataa operation haddaa soo gasho bay kaa ogolo caadi inay kaaga dhalisay ay jeceshahay taas option fiican ay ku siisaa markaas waxaan ku leeyahay fartuuna baayo niyada ha iska jibanin aniga naftay aan kula ah hadda ani adii waxba ma kala dheereen saan filaayo aniga bishii 9aad bishii 8 dhamaadkeedaan dhalay haddana maasha allah waa dhowahay marka hadda cidii aragtaani uuraan leeyahay hataa cod imalaynayso malahan strong aha waa shaqaystaa maasha allah operation ano 10 days ah ayaan shaqo bilaaway waxaa malayn jiray operation aniga inaan waxba qabsan karin inaan kan cuuriyaan ah daweey adiga aska dhigtido maasha allah was too happy maasha allah kaal arag waan iska qabanay 10 days markay ahayd aniga shaqadii waan kusoo laabtay qof walba dhahay 10 days maxaa adiga hormee dhashay ma dhalin miya ali dhahay maasha allah haddana kaal arag waan iska shaqaysanay hal maalin inaan walac dhahay ma seexanin home sickness waxaa jirta morning sickness way jirtaa morning sickness kaasna waxaa waa few minutes le waa some few minutes kaas way ku daynaysaa alxamdulilah waa ka booday walac ma jiro waxaa rabto daawada inaa iska daysid maalinkaas waa la balboonaysaa yacni sneezina dareemaysaa laakiin daawada inaa isticmaalayso maasha allah every morning adii dantaa ku jirto awooddaa ku jirto appetite ay ku siin waa baahani walaca waa laga bixiyay marka waxaan leenahay asxaabteyda intii ugu xiran intii kale jawaabtaas gabaayadaas aan arkay aan kasoo bixiyey waligay jawaabtaas ugama soo bixin waxaan uga soo bixiyay gabadhaasita maasha allah abaayo waxaan ku leeyahay haddaa videogeed aragtidna waa kasaa aan ku leeyahay waa idila soo xiriiri kartaa dr xasan haddaa kasaysid bled waa kasaa maasha allah aad iyo aad haddii aad ku xiran tahayna waa maasha allah waa lasii xiriiri kartaa marka operationka ayadoo la kala ilaalinayo waxyaabo badan dhakhaatiirta la xiriira side effectkada badan aniga naftii way iga ilaalisay way ii diiday cirbadahaas cirbad horta maan rabin laakiin kaniimo inaan qaataa rabi dhiigayga ma ogolo aniga waxaa waa bleed aan ku qaba ayadaa ii sheegtay markay cabirtay kaniimihiina way iga celisay iska dhaaf ay ugu dhahday all side effect ku tahay way kuu sheegayaan dhakhaatiirta maasha allah iska dhaaf ay ugu dhahday marka abaayo waxaan ku leeyahay walwalkaas adiga markaa videoga arkay maasha allah inaan videokaas sameeyay aan ugu soo tirgalay marka waan ku salaamayaa adiga asxaabteyda dhammaanba love you ayaan leeyahay isku waara family farxad ku nool ilaahay in ka dhigo maasha allah ku isku duqooway marka abaayo intaa yareerta waa la dhalaa aniga manxada ka hormaado ilmaa dhashimi dhehaysid maasha allah waana dhadhalooyaa sanad walba waa la dhalooyaa baay waana waa kaas asaasaa loo daayar yahay ma fahantay yaa waxaan rabaaba yaa ani ilmahaba inaan isla soo wada kacno iskuul ani ma iskuul ii wadaa mis aan ilmihi iskuul loo wada in lagu wareero ayaa raba stresska free abay your own mind ka hadal mar walba iska adiga qofaa la tashanin dhakhtarka ama maskaxdaada la tasho maasha allah baayo kib weyn ayaan ku leeyahay cunugaaga ilaah ku barbaariyo baayo hooyooyinkii rafaad ay nagu soo koriyeen annagaaba anti iyo hebel isoo wad aanba anaga helaynaaba ama walaalna la dhalatay haddii hadda gardambeys aad tahay xataa walaalaha ilmeedaaba soo wadan kartaa laakiin waalidkeena way nagu soo rafaadeen ilaahayo hanaga cadaab ilaahooyaasheena waxaan leenahay adduunkana caafimaad iyo farxad nooga nooleysii aaqaran ilaahayo jannatu firdowsa ilaahu noogu waraabi cimri dheer cibaado suuban le allah noo sii annaga iyo waalidiinteen dhammaan intii muslim ah dhammaantiin waxaan leeyahay walaalayaashay bye bye